السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yiraahdaa Idris waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Global Somali Amazon E-commerce Private Facebook Group. Videogan waxaan ugu talagalnay inaad ku aragtaan memberska Abadri Academy ama haddii aad YouTube-keena ka daawanayso ka mid noqoshada private Facebook group-ka process-kiisa faa'iidooyinkiisa iyo sida aad maaragtay aad ku heli karto sala socotaan Abadri Academy koorsooyinka aan sameeyno waa koorsooyin aad maaragtay beecooda raqiis u yahay oo qof walba maaragtay awoodi karo saadarteed qaybaha Amazon ee Soomaaliga aan ku sameeynay dadka markay qaataan inta badan waxay u baahdaan caawimaad dheeraad ah caawimaadaan dheeraadka ah waxaan u sameeynay qofka markuu koorsada dhameysto inuu maaragtay heli karo fursad uu kaga mid noqdo private Facebook group oo ay isugu imaadeen dad Soomaali ah caalamka oo dhan kala jooga oo hal hadaf ka wada shaqeynaya halka hadafna uu yahay inay kulligood ganacsi tayo leh ay ka dhistaan shirkadda Amazon. haddaba qof walba oo Abadri Academy member ka ah wuxuu iibsan karaa inuu ku soo biiro maxaa ka helaysaa private Facebook group-ka lacagtiisuna waa imisa waa tahay private Facebook group-ka qofkii isku filan asaga intuu koorsada qaato casharada dhan wada fahmo oonkiisa isaga maaragtay gooni u samaysan karo waa khayr laakiin qofkii raba in laga caawiyo waxyaalo badan sida su'aalaha joogtada qofka qabo sida maaragtay haddii cilad ku timaado haddii uu u baahdo alaab haddii uu u baahdo sample check waxyaalo badan waa meesha uu qofka ka helayo ilaa iyo ganacsigiisa tayo ka yeesho oo maaragtay lacag fiican ka sameeyo insha Allah. Okay, private Facebook group-kan faa'iidada ugu horeyso inta lacagteeda iyo qiimaha lagu galaan u galin faa'iidada ugu horeyso waxa weeye 24/7 xilliga doonto inaad su'aal ku soo qori karto waddanka doonto joog Abadri Academy team iyo asxaabta kale ee iyagana maaragtay ka soo horeeyay ayaa su'aal walba qabto kaaga jawaabayo. fadlan haddii aad ka mid tahay Abadri Academy private Facebook group-kaas ama hadda ka mid noqon doonto marka ugu horeyso oo aad ku soo biirto waxaa samaysaa wixii ku dhaafay dib u raac si aad mataqaanaa u aragto waxyaalihii aan soo marnay su'aalaha inaad ku soo qori karto xilli walba oo jawaab ah helayso waa qodob koowaad. qodobka labaad waxa weeye qaybta ugu daran oo aan isdhahnay dadka caawimaad bay uga baahan yihiin waa product research alaab fiican oo iibsamayso oo Amazon ku iibsamayso inaad soo raadiso oo 10 qodob ku baasay waqti badan bay dadka qaadataa software badan bay u baahan tahay sida software-ka Jungle Scout iyo software kale. haddaba saa darteed waxaan anaga shaqaaleysiinay qof jooga dalka Philippines gabar la yiraahdo Christine oo private Facebook group aan ku soo darnay aan ugu talagalnay in usbuuc walba isniin walba inay soo geliso content product content alaab oo ay soo xushay lagu soo xiray software anaga aan u iibinay sida Jungle Scout iyo AMZ Tracker ASN Inspector iyo software kala badan. alaabtan waa alaab qofka caadiga ah markuu Amazon galo wala raadi uu san arki karin waa alaab waqti badan la geliyay la isku dayay in la helo alaab macquul ah weydkeeda yar yahay 10 qodob ku baasay oo qofka uu ka faa'iidi karo isniin walba marka content product ay soo gelinaysaa oo fursad u ah qof walba group-ka ku jiro inuu helo ka faa'iideysto kadib mataqaanaa uu sidaas ku bilaabo ganacsigiisa. qodobka labaad waa walaalkeen Cabdiqani oo mas'uul ka ah xafiiskeena ku yaala dalka China adiga asagana inaad fursad u helayso alaabta markaad alaabtii aad iibin lahayd markaa ka heshay oo aad warshadii aad raadisay in aad Cabdiqani la xiriiri karto oo laba shay uu sameyn karo. labada shay waxa weeye sample check wax loo yaqaan maadaama warshadaha 95% ee dalka China ku yaalaan alaabta laga soo iibsado oo hadda lagu gado Amazon qofka maanta jooga Ingiriiska ama qofka maanta jooga Europe Mareykan Canada ama Afrika meel ka mid ah Carabaha
alaab hal shay inuu ka soo gato China oo gurigiisa loogu keeno oo tayada iyo say tahay uu fiiriyo kadib uu order dalbado way ku adkaanaysaa saadarteed xafiis baa waxaan ka sameynay dalka China mas'uul oo dhigay Cabdiqari oo jooga magaalada Guangzhou mataqaanaa dalka China alaabtii markaad warshada hesho processka aan ku barnay markaa marto alaabta waxa u diraysaa Cabdiqari oo halka joogo warshada marka alaabtii xabadii sambalka lagu fiirin lahaa waxay toos ugu diraysaa walaalkeen asaga ku soo jeegareynaa sawir kaaga soo qaadayo video ku soo diraayo tayada alaabtaas ay tahayna ku sheegayo taasna waxa ku badbaaday halkii shay oo lagu soo diri lahaa ilaa iyo $30 $40 plus 7 maalmood ilaa 12 maalmood ka qaadan lahayd iyo plus alaabtaas oo inay kugu fiicanayso inay kugu xumaanayso aad ogeyn waqti badan halka kaaga sii garowayo waa meesha labaad qaybta labaad Cabdiqari ku sameyn kara asaga waxa weeye alaabta inspection da u baahato oo kala markii la diyaariyo inuu warshada ku tago oo ku fiiriyo inay wax basad yihiin intaan loo soo diray Amazon warehouse waa qodobka labaad xagee keli kartaa Cabdiqari waa private Facebook group qof ku jiro groupka baa la xiriiri karo qofkaas oo la shaqeynaya qaybta saddexaad faa'iidada ka helayso groupka qaybta afraad ay raahday waxa weeye Paul oo asagana saaxiib u dhashay Chinese groupkeena ka mid ah shaqada uu qabtay inta shipping warshada markii alaabta ku diyaariso oo ay diyaar tahay inay mataqaanaa alaabta la soo diro isaga la xiriiraysa alaabteedu waa diyaar baa leedahay warshadu dalbaya inay xafiiskiisa warehouse-kiisa u soo diraan alaabta oo isaga u soo diro Amazon asagoo hubinayo alaabtaadii package-kii UPC code-kii waxa loogu talagalay inay sad yihiin kadib alaabtaada waxba cilad lahayn inay maaragtay ay ku timaado Amazon warehouse procedure-ka Amazon FBA Paul wax badan ku soo jiray isagana waxa keenaysaa private Facebook group-keena qodobka shanaad isagana waxa weeye in aan mar dhow aan isagana shaqaaleysiinay wiil loo yaqaano Kim Jin oo dhashay dalka Tanzania muddo ka soo shaqeeyay dalka Philippines freelancer oo soo shaqeeyay Amazon expert ku ah inuu groupka hal u caawiyo collectively ahaan u caawiyo ka caawiyo product listing ka sida loo sameeyo marketing ka sida loo sameeyo Amazon gudaheeda sida mataqaanaa alaabtaas loo monitor gareeyo sida mataqaanaa alaabtaas loo iibiyo isaga noo shaqeeya full time team kana saas ku caawiya iyo groupka kuwa kale oo ayaga insha Allah ku soo dari doono way jiraan marka faa'iidooyinkaas oo dhan ayaa keenaysa private Facebook groupka private Facebook groupka fiigiisa usually waa $400 oo hal mar bixinayso laakiin discount fiican ayaa sameynaa mar walba discount-ka fiican sameynaa waxa weeye waqti xaadirka hadda waxa socdo inaad isku iibsato website diyaar ah oo lagu soo dhameeyay sida qof kale asaga loo shaqeeyo Andrea la yiraahdo oo website u diyaariyo ardayda website diyaar ah oo dhisan website kan loogu talagalay inaad ku bilowdo ganacsigaada Amazon website kan waxyaalaha uu kaga duwan yahay kuwa kale waxa weeye waa website diyaar ah sida domain-kii oo lagu iibiyo hal sano business email lagu sameeyay website-ka lagu dhisay about us-ki logadii iyo waxyaalaha oo dhan magacii oo lagu dooray website-ka diyaar ah marka website-kaas iyo private Facebook group-ka inaad ku helayso $290 kaliya marka WhatsApp number-keena naga soo xiriir kartaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa su'aal walba aad qabto oo ku saabsan Amazon oo aad ka dhaxweyda casharada iyo caawimaad walba u baahato iyo cilad walba ku qabsato inaad ka helayso solution-keeda xalkeeda private Facebook group-ka waxaan leeyahay haddii aad Amazon serious ka tahay dealka fiican ka faa'iideyso haddaba dealkaas haddii aad kala iibsato oo mar inta soo wacta aad tiraahdo private Facebook group-ka rabaa haddana marka aad tiraahdo website-ka rabaa xogaa qaali inay kugu noqoto laga yaabaa laakiin daad isku iibsato lacag $300 ka yar ayaa ku helaysaa labadooda insha Allah ta'ala waxaan leenahay ku soo dhawaada Abaadir Academy groupka waxaa la yiraahdaa Global Somali Amazon e-commerce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.